shir jaraa'id uu ku qabtay gudoomiye ku-xigeenka guddiga horumarinta sayda caalukaya isteed ee beesha ciise ibraahim xasan bahsane ayaa guud ahaanba shirkiisan jaraa'id waxa uu ku nuuxnuuxsaday xaalada guud ee gobolka Zalal gaar ahaana waxa uu ka shaqaariyay gabadha iyadoo maalmo dhaweyd hadallo deeqaaf ah oo ka soo yeedhayay kuwaasi oo ah in cadad deeq lacag ah oo ay soo dirtay isla markaasina gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi waxa uu carabka ku dhuftay in aanu deeqdaasi arag ka gudi ahaan ibraahim xasan bahsane oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlayana waxa hadalladiisii ka mid ahaa si caqliyana anigu aanan degdegayn markaan isku imadnay tashi badan ka yeelanay afkaar badan iyo rayo badan oo beesha dhexdeeda ururnay waxaan garanay in aan kaga gudbi karno in aan samayno rehabilitation people dadka inaan dib u dejino runtii abaaro fara badan baa beesha ciise ku dhacay ugu yaraan muddo 5 sanadood ayay haysteen 5 sanadood ka muddo 5 sanadood ay abaartii haysay xoolihii way ka dhamaadeen therefore markay qofkii dadkii xoolihii reemigii ay ka dhamaadeen xoolihii ay ka baxeen waxay u taabirayaan the survival kii inay raadsadaan for example inay Djibouti galaan inay Ethiopia galaan deegaankiina oo halka cidlo uu ku noqdo isla markaana xilliga jira midig waa ceeb way naga reeban tahay waxay for example sometimes soo qaataan waxa shayga baahama lagu saleeyay for example hadii shaygii baaha lagu saleeyay 12 reebo oo u dhan yihiin waa dad midaan nahay dad quraan nahay xariirad ilaa from usuli waxa weeyaan dhulku waa dhul isku qaymida dadku waa dad isku qaymida inteedu waan ka koobanahay hadba laakiin meeshii problem ka jiro ee dhibaatay ka jirto ayaanu ku horeynaa wax qabadkayga ka wax qabtaa waa ilaahay waxaan leeyahay guud ahaan iyo gaar ahaan warta dadaalkaad gasheen halka ka sii wada ilaahayna tabiciina ma hoojiyo shakhsiyan anigoo ku hadlaya magaca afka guddida gudoomiyaha gudoomiye xigeenka iyo xoghayaha dhammaantood kalsooni buuxda oo aan ka helay ayaan shirkan jaraa'id anigu aan u qabtay maanta runtii bini aadanka lama waayo shay marka la abuurayo in aragtiyo duwan lagu kala qaato hase ahaato aragtida saxda ah bay bini aadanku qaataan waxoogaa deeqaaf lama waayo runtii waxa weeyaan anagu ka gudi ahaan wixii na soo gaadha ee la soo diro for example ay u dambeysay intii Ottawa ay soo dirtay Maxamed Cumar Cismaan ay soo diray iyo mataqaana jaaliyada dhamaantood ku sugan Ottawa professor Xareed kamid yahay da wixii aanu ku qabanay iyadoo maqal iyo muuqaal baa waanu gudbinay dhamaan waxaan leeyahay wad maasantiin runtii maalmahan hadalla la soo yargaariyay hadalladaasi siyaabaha doonaan ha ahaadaan ka gudiyaan markaan iswareysanay aan xoog wareysanay runtii bini aadanku self confidence ku socdaan is-aaminaad iyo mataqaana kalsooni ayaa hawl lagu dhaliyaa gacmiga jirbay wax ku qabtaan kadib runtii gabadhaasi waxay ka mid tahay gabdhaha ciise ee qurba joogta kulli shakhsiyan anigu aqoon ma lihi laakiin gudi ahaan guddiga horumarinta xeebaha ee degmooyinka sayr iyo luqaya anaanu kamid ahay maxamed xaji cali gudoomiyaha ka yahay gudoomiye xigeen buuni ka yahay anaanu xoqaynta ka ahay iyo xubnaha kale ee 9 xubnood ka kooban ee beesha ciise runtii gudi ahaan waxna soo gaaray oo gabadhaasi ku qoran Luula Cali Sheekh ka yimid oo dhaqaale ah oo ay tiri gabadhaasi gudida waan gaarsiiyay anagu runtii kulay ma hayno markaan isxoog wareysanay qaabku doona lacagtaasi ha u soo baxdo runtii waxa anaga gacanteeda soo gaaray oo gudida gacanteeda soo gaaray ma aha lacagta manaan arag runtii wixii dhaqaale ee jaaliyadu soo diraan waa wax marag ma doona waa wax mataqaana la isla yaqaano waa wax la garanayo waxa lagu qabanayo ya runtii gabadhaas hadday wax dhaqaale anaga ay soo gaarsiisay gudida soo gaarsiisay gabadh waxaan uga been sheegnaa waa ceeb diiniyan iyo dhaqan ahaan inaan wax beena gabadha ka sheegno waa absolutely sharafkayga maaha maanaan arag lamana soo gaarin insha Allah hadduu soo socdana waa mid aan filayno oo na soo gaari doona waana gudoomi doona waana u mahadnaqi doona cid Allah cid wax soo dirta maanta walaaladeed gacan ka geysata
كلي أنت صيان الموضوع كذا بحياة معناها اللي يري ما يرويان من كذا بوسي وأروح على اللي وحالك كيا متجر تنين دقيقة كنور حبين إيام معلن يا وحكت هلنا يوحو حكومة يو أيان ترين تقشي مقالو أشعد مقالو وانين شير كتير ربانية marka insha Allah waxaan rajeynayaa taana taadan kaga gudbaya wadanka ninkii leebaale wadanku maaha mid maran gali kara maaha wadanku mid gida buusimaanta sheeganayaan aniga gida buusimaanu isnaqaana wadadaan naqaano waxa ciisaha agtooda ka yihiin ayaaban jirinba saylac baan joognaa president baan ku nahay hadda wax sheeganayaan halkan ka sheegi lahayn wadarkii lahayn maayirkoogu hadlaya maayirkoogu qeylqeylaya darkii lahayn maayirkoogu ciise dhex socda darkii lahayn waa nin xaydaaman عسن محمد عبد الله شبكة عالمية شنيل نيوز مقالة سيلاع.